وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد لما مسؤولية كالدول والمعودين والدين تقيموا كالدول عدد قلنجبين يسو معمولة الإسكولة كالدول أغويانا أنت وحنا لكم سلام يا سلام تسلام سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كيدي بلا عماد مركورة نوصول إلينا هلكان سوى الإيمان أنا وقف ترسيمين على الإسلام والإيمان intaa kadib waxaan maxad ballaaran u jeedinayaa maamulka iyo macallimiinta iskuulka Risaala xafladan iyo dabaaldega maanta la joogo aan sababtooda ku joogno juhdi iyo dadaal badan ay bixiyeen sababteedana aan ku taaganahay waxaan hambalyo leeyahay ardayda qalin jabinayso maanta sharafta ku joogtiin iyo qiimaha iyo dabaaldega waa waxa idinku soo qasbateen waana juhdi iyo dadaal badan idinku soo bixiyey waana waxa ugu qiimaha badan lagu farxo marka ay taagan tahay guulaha la gaarayo guulaha ugu sarsaraysa ay ka mid tahay maxaa yeelay waxay ka tarjumaysaa jiritaalkaada qofnimo shakhsiyadaada dadnimadaada horusocodkaada iyo horumarkaada asaaskeedu weeyaan inaad ka qalin jabisay ama qayb ka mid ah ka tallaabday waxbarashada guulaha la gaaro saameynta badan isugu hambaliyeeyo lagu farxo lagu faano ayay ka mid tahay waxaan idin leenahay hambalyo dadaal badan baa idin sugaya waxaa la rajaynayaa insha allah inaad sii gaari doontaan waxaan ka socdaa ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed oo doosiyo ka shaqeynaya arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka intaas laakiin waxaa iga qiimo badan maanta inaan ka socdo aan ka mid tahay bahdii dugsiga Risaala waxaan ka mid tahay macallimiintii dugsiga soo martay waxaan ka mid tahay mas'uuliyiintii dugsiga soo maray juhdi badan ka soo geystay intii tawar ah maanta waxaa loo dadaalaya juhdigaas loo bixinay maalintaas waxay ahayd maanta guushaan arkayna in la gaaro waxaan aaminsanahay dugsiga Risaala nidaamyada waxbarasho jira kuwooda ugu adag inay ka jirto dugsiga dhexdiisa nidaamkiisa iyo systemkiisa uu aad u dhisan yahay taasna lagu gaaro guulaha maanta la gaaray qofkii ku dhex jira dareemka iskuulka la soo maray waxbarasho marka la yiraahdo systemkeeda had dhisnaada dugsiga Risaala wax gaaraya inuu jiro ma malaynayo sidii sugu maamula oo maamul kala duwan soo maray tsunami maamul soo amaanta soo maray maamulka hab wuxuu ka shaqeynayaa systemka dhisan marka mar walba systemka dhisan baa dadku xukuminayo la yuhimuna man yahkum walakin yuhimuna qawaid al-hukm yani qofku wax xukuminayo muhiim ah laakiin wax la isku xukumayo oo systemka dhisan baa wax ku aamin kara marka systemka Risaala sidoo uu dhisnaa maanta lagu dhisay ku faraxsanahay wax lagu faanayo maanta Musaa Umar hogaaminayo la dareemayo in aqoonyahan waxbartay yani inta badan la yaqaano systemka waxbarashada kusoo macallimiin kusoo bilaabay ilaa heer maamul marayo fahansan yahay qaladaadka imaan kara iyo faa'iidooyinka imaan kara qofkaas inuu hogaaminayo iyada guul kale ay noqonaysa marka waa mar labaad iyo mar saddexaad waan ku faraxsanahay dugsiga Risaala guusha maanta taageertay iyo heerka maanta la marayo walba waxaan la tartami jirnay xilligaas iskuulaadka naga da'da weynaa wali waxaan isku dayay inaan hormuud ka noqono nidaamyada inaan iyaga aan systemka baro marka sidii ay taagantahay way u taagnaanaysaa insha Allah waxaan rajaynayaa inay sideeda sii ahaan doonto intaa kadib waxbarashada waxay u leedahay bulshada iyo shakhsiga waa muhiim gaar ah kun caaliman oo mutacalliman ولا تكن ثالثا فتهلك يعني قف وحبرتين نقو أم قف وحبرنا نقو قف سدحات نقول إنها قوات باب إيسا تاو هي كتوسيسا يعني قفك إنه وحبرتو أم إنه وحبرنا إنه كل حي وحكفى إلى بدل المسجد لكن إنه وحلا برتو مهم جارع إنه يضحي بشخصية وحتوسيسا نولشيسا وحتوسيسا هرمركيسا وحقول بوحبيس نقول إنه وحبرتو قف أنا وحبون المعنى بدل ملاه وجد من قيمة جارع وليه بالمناسبة boqoradii dawladda Umayyadeed soo maray boqor ka mid ah Abdulmalik bin Marwan la dhigay baa wuxuu booqday Kacbada waxaa la socday laba wiil oo isaga mudnay iyagoo Kacbada booqanayana waxay arkeen nin dadka la yasa ka mid ah oo aan saas dadka maalqabeenta aan ka mid ahay oo meel uu taagan yahay ama meel uu fadhiyo bulshada dhan isaga artiis ay heersan tahay oo la wada joogo wiilashii intay fiiriyeen la yaabeen aabahooda weydiiyeen waxay yiraahdeen
ninkaas sidaan loo qiimeynayo weliba qiimaha adigoo boqor aadan lahayn isaga u leeyahay maxaa sabab u noqotay oo sidaas loo joogo muxuu yahay aabaha nin wax yaqaan u ahaa wax fahansan tii wuxuu rabay ilmihiisa inuu kaga faa'iidaysto tusoo muhiimadda waxbarashada ay leedahay wuxuu warka ugu bilaabay yaa baniya tacallamu alcilma fabilcilmi yashrafu alwadiica wayanbihi alghaamila wayaclu alcarqa calaa maraatibin wari yaa baniya tacallamu alcilma caruurteedii aqoonta barta maxaa yeelay fabilcilmi yashrafu alwadiica aqoontu waxay sharfaysa qiimeynaysa qofka la yaso wayanbihi alghaamila kan caajislahan way buraarujinaysaa wayaclu alcarqa calaa maraatib almuluki kuwa addoommadahan waxay ka sarmarinaysaa darajada ay joogaan boqorada ninkan sidaan loo qiimeynayo ujeedid wax lagu qiimeynaya wax kale maahan aqoontu weeyaan marka qofka bini'aadamka shakhsiyadiisa bedelaysaa aqoontu waxay u yeelaysaa qiimo aanan lacagta u yeeli karin ama waxyaalo kale aanan u yeeli karin qiimo gaar bay siinaysaa wayaxmiluka fiina deyka taajan waxay ku xiraysaa taaj yani taajka waa la yaqaanaa boqoradaa xirto wax yani dadka kaga soocan yahay qofka la garanayo qofka taajka uu xiraya yani uu sharaf noocaas oo kale ku siinaysaa dadka kaga socnaanaysaa wax ama laakiin haddaadan wax baranin laysa lijaahili fi nnaasi macnan qofka jaahilka ah dadka dhexdooda macno badan uu leeyahay ma laha waana cudurada ugu xun uu ka mid yahay qofka inuu jaahil uu noqdo waa tii nabillaahi muuse uu dhahay acuudu billahi an akuuna min aljaahiliina waxaan ka ilaahay kaga magangelaya inaan ka mid noqdo kuwa jaahiliinta aan waxba garanaynin yani jaahilku waa cudur xun oo qofka bini'aadamka aan weligiis dhaqaajinayn weeyaan wax xun iyo wax sanna uusan ku kala garanayn weeyaan qofka hataa marka la raacayo aaraadiisa la dhegeysanayo hadalkiisa la raacayo qof wax bartay qof aanan wax baranin lama dhegeysan karo mana la raaci karo watii nabillaahi muuse calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay u bariyey lagu amray weeyaan inuu kuwa jaahilada uusan yani raacin nabillaahi muuse markuu fircoon uu kari waayey dhinac kasta uu ka maray fircoonna uu ardaal soo taagan noqday oo rabbinimo sheegtay uu nabi muuse xawaaray weliba wuxuu ilaahay ku eedeeyey wuxuu yidhi ilaahow ninkan fircoon yidhaahda adiga xantida ka badiyey xanta fara badanaa siisay ninka inuu manyaco garoora sabab u noqotay ninkan waxaan kaa codsanaya inuu xantidina ka baabi'isid isagana weligiisuusan ilaahay rumayn gaalnimadii uu ku dhintaan duuniyaa ilaahay wuxuu ku yidhi qad ujiiba dacwatukuma waa la ogolaada la yidhi tuugtiina fastaqiima idinka toosnaada laakiin walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun kuwa aan waxba garanaynin oo aan wax baranin wadadooda ha raacina qof aanan wax baranin wadadiis lama raaci karo idan marka waa in wax la barto muhiim gaaray u leedahay qofka bini'aadamka idan marka inaan wax barano muhiim gaaray noo tahay aan waxbarashada u wada istaagin dugsiga risaale mar labaad iyo mar saddex waxaan leeyahay hambali guusha maanta aad taagantihiin iyo dadaalka ugu jirtiin wadkan soomaaliyeed inaad kaalin ka qaadatiin inaad mustaqbalkooda iyo ahyooda aad dhistaan aadaan idinku mahadinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi